بسم الله الرحمن الرحيم maanta saxaafadeedkan aan ku qabanayna xarunta dawlad goboleedka Jubbaland waxaan rabnaa inaan kaga hadalno dhowr qodob oo ku saabsan xaaladaha gobolka Gedo gobolka Gedo waa gobol todobadiisa degmo ay xor yihiin qaybna ka ah dawlad goboleedka Jubbaland waxaa maalmaha socday raaqiya jaha wareerinayo bulshada gobolka ku nool oo marka hore la dacay abaaro iyo xaalado bini'aadanimo iyo amni darro halka ka jirto waxaan u tacsiinayaa sargaalka ugu dambeeyay ee ku dhintay Galad Xaawo Maxamed Aweys oo runtii ahaa nin qayb weyn ku lahaa xoreynta deegaankaas waxaan u mahadcelinayaa jawaabtay ka bixisay dawladda Soomaaliya oo u soo direen maxkamad iyo cid baarta kiiskaas oo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay sidoo u dhacay waxa ka soo horeeyay taliyihii nabad sugidda bakaal Allah u naxariisto oo asagana saas oo kale si tuhum ku jiro ku baxay marka dadka halka cadow leh oo halka ciidan ah haday kala shakiyaan mushkilad bay leedahay marka taana waxa lagu saari karaa in si qodob dheer loo baaro la helo dambiilayaashii cidda fududeysay sharqollada saraakiisha ku dhinteen waxaan jeclaan lahaa dadka ku howlan qaska iyo dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah nidaamka dawliga ah oo ama dibadaha ka wada ama gudaha gobolka ka wada inay arrinta dib u eegaan mas'uuliyad ayaga saaran inayna ahayn aan u cadeyno maxaa yeelay gobolkaas dawlad goboleedka Jubbaland buu xubin ka yahay wuxuu leeyahay hoggaan siyaasadeed iyo hoggaan dhaqan marka hoggaanka dhaqanka waxa la rabaa doorkiisa dhaqanka inuu ka ekaado oo soo ku milmin siyaasadda ama dadku xusul duuba interesadooda shakhsiga ah oo san gacan khaas ah siinin ee uu siyaasadda ugu dambeeyo cidii loo idmaday hoggaanka siyaasadda marka laga hadlayo 26 xildhibaan baa gobolka soo jeedo u matasho dhammaan degmooyinkiisa 17 xubnood in ka badan ay ku leeyihiin xukuumadda anigii oo madaxweyne ku xigeenka ah oo maanta mandate u haysto ama wakiil ummadda uga ah baa joogno cidda tala nagu biirinaysa oo wax khaldan nagu dhaliilayso waxaa la rabaa inay wadada nidaamka u soo marto oo si cad noogu sheegto laakiin cid aan xil basaarneen inay maalin walba ummadda jaha wareeriso oo ay ka dhigto dad banaanka ka xeerarka iyo sharciga dalku degsan oo jaha wareeriso taas oo waxba ka soo bixin waddo mugdi ah ku kaxayso wax loo dul qaadan kara ma sidaa darteed maanta waxaan go'aaminay Cismaan Nuux Xaaji Macallimow inuu yahay mas'uulka maanta haysto sharciyada rasmiga ah oo gobolka joogo Cismaan Nuux gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Jubbaland buu ahaa shaqadiisa baan u soo celinay asaga ayaana ka mas'uula maanta laga bilaabo howlaha gobolka si hayaha gobolkana ah inta ay Jubbaland ka soo dhameystirayso ama iswaafajinayso nidaamkii la burburiyo si sharci darrada loo burburiyo gobolka ka howlgeliyay inta dib looga habaynayo marka dhammaan hay'adaha amniga taliyaha guud ee amniga gobolka General Jamal taliyaasha ciidamada xoogga dalka kuwa booliska كل waxaan rajaynaynaa inay mas'uulka gacan ku siiyaan gudashada waajibaadkiisa iyo dhammaan mas'uuliyiinta ka howlgala degmooyinka ay u hoggaansamaan nidaamka wax tarka leh oo sharciyada ku fadhiya mas'uulkan garbaari buu joogaa Cismaan Macallimow asana waxaan rabnaa inuu u howlgalo dib u habeynta nidaamyadii iyo gudashada waajibaadkiisa maadaama Jubbaland ay go'aansatay dagaal ka dhan ah argagixisada howlgalkaas oo bilowday wajiga labaadna aan rabno inaan ka bilowno gobolka si ammaankiisa loo soo sugo in uu ka soo jeediyo talooyinka ugu habboon oo arrinta lagu fulin karo soo la kaashanay dhammaan inta waxgarada ay hay'adaha amniga ee gobolka ka howlgala ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa qof maalin buu xilka joogaa maanta anaga joogno Britain cid kale joogto dadka
meesha ay midida ka degeen oo ay xibinta ka ahayn ka wado inay gobolka qaska ka daayaan looma dul qaadan karo dalka xeer buu leeyahay nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay marka cid kasta oo si khaldan wax ku raadiso cid kasta oo ammaanka khalkhal geliso cid kasta oo inkirta dowladnimada Soomaaliya iyo xeerarka u degsan looma dul qaadanayo waxa lagu soo dhaweyn doonaa xeerka waana lagu eedeynayaa dambiga ay dadka ka galiyaan xeerka iyo sharciga waxay ku helaan baana la sameeyaa dowladda dhexe Soomaaliya waxa mas'uul ugu ah wakiil ugu ah dhammaan deegaanada Jubbaland dowladda Jubbaland oo sharciyada ku fadhida oo baarlamaankeeda uu siiyay mandate marka iyadoo lagu dhaqmayo dastuurka iyo heerka dowladnimo ee heer state iyo heer federaal waa in wada shaqeyn la yimaado marka shakhsiyaadka u qaatay in waxay rabaan sameyn karaan kuna nabadgeli karaan arinta ma soconayso dib ha ugu baxeen xildhibaanada gobolkan ka soo jeedo oo heer federaal ah oo 16 laga soo doortay iyo senatarada 8 ah ee state-ka matalo ayagana waxa la rabaa inay roolkoodii ku ekaadaan oo hay'adihii sharci dejinta oo loo dirsaday ay maaragtay ku ekaadaan waxay qabanayaan inay noqoto waxay state-koodii ayaga wakiishay iyo dadkoodii doortay ay gacan ku siiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.